السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودوا صاحبة قيمة هي قدرت مدن كحرن جنال كمال لها فاميلي ومركل يا موقع الحصوب موقع كان وحنوجه لنا مسلسل كبقر ككلوميسيا ومسلسل عصوب هذه هذا حسب بدن هذا كار يعني إذن شاقينا مسلسل كان بلابي دونا بل ما أنت كدب أيام بلابي دونا مسلسل كان الصومالي وأجرا وحين لتينا دعوتين وحنا لقوا مقعبة بقر ككلوميسيا وحنا لقى دعوة دانك الصومالي شبكة درجة كيبل تي في مسلسل كان آد بوحيس بدن yahay soo marka مسلسلkan qisadiisii oo gooskooskii u dambeeyay xalqada 19aad ayaanu muuqaalkan uga hadlaynaa ee dawladayda markii waa soo booqay channelkan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like noo saar waa ma santeeta ka bacdi soo dhawo hada waxa laga yaabaa asxaab badan oo idinkeedii kamid ah inay مسلسلkan daawanin ama qaar kamid ah ay xalqada un ka daawadeen marka qisada مسلسلkan aan isu soo xasuusino koo مسلسلkan waxa lagu magacaabaa Yaali Jabkini waa مسلسلka ugu daawashada badan waqti xaadirkan gudaha dalka Turkiga iyo sidoo kale dibadda Turkiga hadaba مسلسلkan waxa lagu magacaabaa asalkiisa Turkiga Yaali Jabkini sidoo kale macnaheedu ay tahay boqorka kalluumaysiga yaani kaliya Yaali Jabkini hadii labada erey la kala qaado laba macna ay yeelanaysaa balse marka la isku daro kadib boqorka kalluumaysiga ayuu noqonayaa ama king of fisher Daa'ir Arrafraf inta markaan ka nimaan مسلسلka magaciisa مسلسلkan waxa laga daawadaa telefishinka Star TV hadaba Star TV وهذا يقدم بيسي مسلسل آد وكلا كعاد وقروح بدن مسلسل كقدم بيه كفش المنا وحاها مقال أما دوي بني إنك صار دنك ديبة تركيا وقولوا إنك سو حريجي سيدو كل سنة كلا بكون إلا بيجي لبعتنا سنة كي تجي ونقلي مسلسل كي لو جرى هذين تبنى دنك جوجل كمسلسلات تركيا هذا نساس أي تاي مسلسل كيالي جابكيني ستار تي في وحتاجرس أساس ميسن أموجن إنك سو حيال بدن كفايدي هدوين نقطة عصب معامل عصب سبسكرايبرز عصب وحيال بدن بكفايدي بلسه وحا دعديها بين قار إن كوس كأي سودين ويدو يعني مسلسل كده حيسة أي آد مسلسل كله وده حيسيسته مركز قار كوس هذا مركز السودين يا إتراض عاو مسلسل كلا سودين يا كوس كنا مسودين كري يعني حتى فانيسكا يالي جابكينو آدي آد أترى بدن تلفزيون كدولان كو قاضي مسلسل كان وحا فيليا إن داوتين إن شاء الله معلومات ربك صابتنا هذا كذب ونيدلو ذاك دونا واتا قصة مسلسلك هذا بقى قصة مسلسلك وارونتي وقصة آدي آد معان يرلاقو مقعاب فريد يأوي سهاليس آغا أي waxay ku noolyihiin qasri hasa ahaatee odaygaas lagu magacaabo Halis Aga ayaa maalkan iyo qasrigaas iyo wax walba guriga ku jira soo shaqeystay marka dadka gurigaas jooga oo aad u tiro badan waxaad moodaa inuu guumeysiyaan haysto ama ay macnihiisu tahay in uu leeyahay amal maadaama lacagtan soo shaqeystay waxaan dhaho oo kaliya sameyn doontiin sidoo kale waxaan ogeeyay ma sameyn kartiin wax walibana aniga ayaa go'aaminaya cuntada ama marka miiska cuntada la fadhiyo anigoo kama kici kartiin markaan soo galaya miiska cuntada fadhiisanayana waa inaad istaagtiin cuntadaana qof kama maqnaan karo ilaa uu xanuunsta ama dhibaato kale ay ku timaado guriga ka maqan yahay mooyaane sidoo kale bixitaanada badan guriga laga yaranaya camal macnaheedu saas ay tahay aan filay yani ahaantayda marka odaygaas iska guumeysay badan yahay hasa ahaatee waxaa dhacday in gabadh oo darbijiif adu meelaha ciyalka xaafada iska ah ay maalmaha kamida atooraha Fariid ay la seexato isla markaa asagoo wax wara ka hayn si ay sharafta gurigan iyo sharafta reerkanba meel uga dhacdo waa sharafta reerkorhan kadib si sharaftaasi loo soo celiyo maadaama Fariidna inkiray gabadhaas hooyadeedna ay gabadhii rabtay oo ay soo kaxaysatay oo boolis wadatay waxaa la dhahayaa Fariid waa inaan u guurinaa meel waliba gabadh waa in laga keenaa hasa ahaatee gabadhii ayaa la raadinayaa waxaana la tagi doonaa magaalo lagu magacaabo Antab odayga ayaana doori doonaa ama wadaadka wuxuu dhahayaa magaaladaas ay gabdho fiican degan yihiin nageeya kadibna arrinkaas waxaa loo xir saari doonaa Ifakaat oo ah Fariid waxaan filayaa eedoman ku tilmaami karaa ma aayo yani adeerkaaga islaanta uu qabo waxa la dhahaa aayo iska dhe marka Ifakaat iyo sidoo kale Fariid aabihiisa ayaa loo xir saari doonaa Orhan loo xil saara ma xume markii ay gabadhii soo raadiyaan ugu dambeyntii waxay helayaan meel oo gabdhaha lagu fiirfiiriyo oo gabadha la iska jeegareynayo oo gabdho aad qurux badan ay isugu yimaadaan meeshaasi ayaana laga dooqan doonaa gabadh lagu magacaabo Suna hadaba Suna reerkeeda hadeen iyadana xoogaa macluumaad idinka siino Suna iyo Seyran waa laba gabdho walaalo ah waxaa saddexeeya islaan lagu magacaabo Asma ayaa filayaa Isma waa hooyadooda balse aabahooda ayaa aad u guumeystaa oo aabahoodna nin weyn ayuu iska dhigaa
aad ayuuna u guumaystaa oo si xun ayuu runtii u guumaysan jiray. Sidoo kale waxaa afriin jiray reerkaasi marka odayga laga imaado aabbahooda waxaa afriin jiray odaygaas shaydaankee Sayraan iyo Suuna dhalay islaan eedo ah oo lagu magacaabo Khadiija ama Hatiije. loo magac ay leedahay yacni Khaduuj bay marka qaar ugu yeedhaan laakiinse magaceeda rasmiga waxaa weeye Khadiija hadeen af Soomaalihaan idinku sheegno Carabina waa Khadiija ayaga laakiinse Hatiije ahaan ayay ugu dhawaaqayaan. haddaba reerkaas markii ogaadaan Suuna in la guursan doono aad ayay u farxi doonaan, balse maalin maalmaha ka mida yarkii loo guurinayay gabadha ayaa waxaa u iman doonaa magaalada Antebes la dhaho. kadib markuu yimaado wuxuu kula kulmi doonaa halkaas dukaan Sayraan gabadha la dhaho ee Suunadii la guursanayay ay walaala ahaayeen. asagiyo Sayraanna runtii xoogaa shiriyar ayaa dhex mari doona, wuxuuna ku qaldaayay in ay tahay dukaanku uu hortaagan yahay qofta iskale, balse runtaa waxay tahay dukaanka ayada xitaa in wax ka iibsanaysay. xoogaa hadaleer ay isdhaafsanayaan. haddaba waqtigu waxa uu socda waxaa la go'aansanayaa Fariid in gabadhii loo doono oo sidaas loo keeno. ha loo doono ma xume markii guriga imaadeen Fariid iyo aabihiisa iyo sidoo kale aayadiisa Ifikaat waxaa dhacaysa in Suuna shaax loo soo dhiibada maadaama gabadhii la guursanayay ay tahay oo reerka shaax u keento. haddaba Suuna oo iyadu guurkaas aad iyo aad u xiiseynaysa oo islaad maanta way ku dhacay reerta jirina gurigooda tagaysa, waxaa dhacaysa in ay kafeygii ay waday ama shaaxii wixii ay waday in ay dhulka kaga daataan. markii ay ka daataan kadib gabadhii naxdin ayay meel ay qabatay ay garan waaysaa. ugu dambeyntiina waa la soo bixin doonaa oo Sayraan ayaa caawin doonta. kadib markii uu Fariid arkay Sayraan in ay gurigan joogto isla markaana ay walaalo yihiin, wuxuu soo istaagayaa gabadha aan rabo waa Sayraan ayuu dhahayaa gabadhan aniga waqti xaadir ka rabo Sayraan ayaa rabaaba. kadibna maxaa ka fiican ayaa la dhahayaa markii hore guurku waa diidaneen haddii aad mid labadan gabdhood doortana anaga waxaan diidayna ma jirto waa saxdii oo camal oo kale. kadibna odayga Orhaan ayaa dhahaya gabadhaada weyn ma rabna waxaa rabnaa gabadhaadan yar ayaa rabnaa tayar ayaa rabnaa. odaygina wuxuu dhahayaa baarakallahu fiikum calaa sunnatillah wa calaa sunnati rasuulillah baarakallahu fiikum ayuu dhahayaa oo qaata. kadibna gabadhii sidaas ayuu Fariid iyo kula soo baxayaan ama sidaas ayay ku doonteen. maalintii xigtana waa loo guurin doonaa. waxaan jeclaan lahaa in aad halkaas yacni taxanaha aad ka fahmi doontid qisadiisa oo dhammaystiran, balse haddii xalqadii u dambeysay aad socotid dhan commenti fadlan gula wadaag si aan isla halkaa uga sii jaan qaadno. haddaba xalqadii u dambeysay goosgooskeeda xoogaa faalaayna ka siino kuma sii dheeraanino oo waxaa rabaa commentigiina iyo tacliiqaadkiina in ay noo sheegaan meesha aad waqti xaadirka maraysiin. taxanaha ma koobaan kasoo bilownaa mise meesha uu hadda socda ayaan ka bilownaa. waa tahay goosgooska 19aad waxaan ku arkaynaa yarkii Fariid ahaa oo runtii gabadhii Sayraan ahaa ku dhawaaqaya. sababta ugu dhawaaqayana waxay tahay Sayraan waxay la kulmaysay Efe oo isla markaasi rabay in uu barnaamij la sameeyo sawirro badan oo ka qaado fashionistana ay soo baxdo, balse Fariid ayaa ka qasi doona kulankaas oo aad runtii u dhax qasi doona. kadibna Fariid iyo Sayraan way istagaali doonaan. Fariidna aabihiisa ayuu la hadlayaan filayaa. kadibna maalmaha ka mida odaygii lagu magacaabayay Halis Aga dhahaya Fariid aaway isla markaana Sayraan waxay dhahaysaa aniga ma ogi. odaygaasina aad u xanaaqay wuxuu dhahayaa gurigan muxuu ahaa labada isqab xitaa aysan ogeyn meeshay kala joogaan. kadibna isla goosgoos dhexdiisa waxaan arkaynaa Fariid oo Berlin u tagay habaysa siinayaan. Berlin ayuu sidoo kale soo kaxaynayaa. ma fahmin kulli faafahinta dhammaystiran waxaan rabaa inaan muuqaal kale ka sameeyo. haddii aad rabtiin fadlan laakiin waxa muhiima ima koobaan kasoo bilownaa mise halkan aan kasii wadnaa. channelka subscribe saar sidoo kale muuqaalkan like saar. anigu saaxiibkeen Khalid. wassalaamu calaykum warahmatullahi